waxaan halkan idinkugu hayaa qiso jacayl oo dhex martay wiil iyo gabar isku bartay safar ay u wada safrayeen hal meel. waxaan idin soo tabin doonaa anigoo ah Saayid Cali. waxay ahaayeen wiil iyo gabar ku kulmay safar ay u wada safrayeen hal meel. waxa ayna isku barteen isla safarkii. kaftan iyo sheeko kadib safarkii ayaa dhammaaday oo waxa ay kala qorteen ciwaanadooda si ay isku soo xiriiriyaan. waa ayna soo kala tageen. gabadhii ayaa waxa ay bilowday wiilka inay ahmiyad gaar ah siiso, wiilkana sidoo kale. heer waxa ay gaareen inay saacado ku wada hadlaan koolka, ayagoo weliba xiiso isku qaba ayay kala tegi jireen. muddo kadib waxa ay bilaabeen xiriir jacayl. jacaylkoodana waxa uu ahaa mid marba marka ka sii dambaysa farxad ku kordha. waxa ayna ku balameen caqabad walbo soo dhex gasha jacaylkooda inaysan u joojin doonin. kadib wiilkii ayaa waxa uu bilaabay gabadha inuu baro waalidkiisa. waalidkiisna waxa ay u soo dhaweeyeen gabadha si qurux badan, waa ayna ku dhiirigeliyeen jacaylkooda. gabadhii ayaa halkaas jacayl xad-daaf ah ugu sii qaaday wiilka. waxa ayna u ballan qaaday sida uu ugu farxiyey si la mid ah inay ugu farxin doonto. balse nasiib daro, arrin ayaa jirtay ay gabadha wiilka ka qarinayso. arrintaasoo ah gabadha horay ayay guur u soo martay oo 2 carruur ayaa u joogto. carruurteedana iyada lama noola, aabbahooda ayaa ka watay oo asaga ayay la nool yihiin. carruurteeda aabbahoodna waa ay kala tageen. wiilkana war uma hayo arrinkaas. iyadana cabsi awgeed ayay ugu sheegi waysay oo waxa ay niyadda ka dhaaday haddaad u sheegto kuma sii jeclaanayo oo waa uu kaa tagaa. jacaylkoodii waa uu sii kobcay. muddo kadib wiilkii ayaa waxa uu ku dhahay, jacaylkeena waxaan rabaa inaan guur u beddelanno oo aan waalidkaaga kaa soo doonto. gabadhii naxdin ayay la aamustay oo afkii baa juuqda gabay. waxay ku hadasho ayay garan waysay. niyadda ayay waxay ka dhahday, ilaa iyo goormee ayaad been sheegi doontaa? ilaa iyo goormee ayay kuu suurtagali doontaa inaad been sheegto? ilaa iyo goormee ayaad qarin doontaa carruurtaada? gabadhii intaas waxa ay u samaynaysay oo ay u qarinaysay carruurteeda. nacayb ay carruurteeda u qabta ma aysan ahayn, balse cabsi ay ka cabsanayso wiilka ayay u qarinaysay. ugu dambayn gabadhii wiilka waxa ay ku dhahday, waqti xaadirkan aniga guur diyaar uma ihi, sababtana ha i weydiinin. wiilkii ayaa waxa uu ku dhahay, maxaa dhacayso, ima jeclid miya? markaas ayay ku tiri, haa, laakiinse hadda diyaar uma ihi guur. gabadhii waxay dhahday, haddaan ka qariyo maanta, maalin uun wuu ogaanaa, wuuna iga dheeraanaa. markaasay waxay tiri, intuu asaga iga dheeraan lahaa aniga ayaa ka dheeraanayo. waxay ka doorbiday in jacaylkeeda runta u sheegto inay carruur leedahay, kadibna wajaxumo ay ka qaado. waxay danta biday ayadoo dhanna qalbigeeda dhaawac u diidan, dhanna carruurteeda fiirinayso. waxay go'aansatay inay ka tagto jacaylkeeda, iyadoo ka fikirtay hadday runta u sheegto dhaawaca qalbigeeda soo gaaraya iyo dhaawaca jacaylkeeda soo gaaraya inta uu la eg yahay. sidaas darteed ayay jacaylkeeda iskaga daysay oo ay qalbigeeda ka saartay, weliba xiriirkana u jartay wiilka iyada oo ka xun. dhegayste ama daawade, haddii ay tan oo kale ku qabsan lahayd, maxaa samayn lahayd adiga?